أنا حاليا بنا أسوديا مرمرك قار قفتنا حاسمية مسوا دوعية kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel kasta dunida ka joogtaan halkaad nagala socotaan waa channelka Fandoor Media oo aalamiis ugu gudbiya barnaamijyo xiiso leh warar iyo bixino iyo waxyaalihii ugu dambeysay ee social media isla marayay fadlan walaal macaan inta ku cusubtaa channelka subscribe saaro gmailka furo si uu ku soo waxaylaan soo gelin markasta hadaad hornood la joogtaan muuqaalkan like saar una sii share garaa asxaabtada aan u gudagalnay barnaamijkeeni waxaa maalmihii ugu dambeysay social media aad u qabsaday hadalhayn badan ka dhaliyay aadna way uga caroodeen dadyo badan oo ku tixnaa jiray Rashka Boy iyo Xabsa furiinkooda hase yeeshee Rashka Boy oo laga warsugayay muddo badan inuu ka hadlo arrintan ayaa ka hadlay waxa uu sheegay si cadna u sheegay inay kala tageen ama ay isfureen Xabsa iyo Rashka Boy ayaa lagu bartay muuqaalo ay soo wadageli jireen barta ay ku leeyihiin YouTube-ka kuwaas oo caan ka ahay sida aan xasuusanaa waxay ku guuleysteen lamaanihii ugu shidnaa ee sanadkan 2020 taas biladaas oo bixinayay Asad Xaaji oo asna ah YouTuber haddaba waxaa si weyn uga carooday kala tagaan iyo furiinkan Rashka Boy iyo Xabsa taageerayaal badan oo taageeri jiray Rashka Boy iyo Xabsa kuna tixnaa barta ay ku leeyihiin YouTube-ka kuwaas oo ka daawo jiray muuqaalo xiiso leh oo madadaalo ah kuwaas oo soo wadageli jireen lamaanaha da'da yar ee Rashka Boy iyo Xabsa balse waqtigu kala geeyay hase ahaatee ugu muhirin dad kala taga ama isfura balse Soomaalidu sidaan lagu socono wayna guursadaan wayna kala tagaan balse arrinta xiisaha leh ayaa ah in social media aad loo hadalhayo furiinkan iyo khilaafkan soo kala dhexgalay Rashka iyo Xabsa dadyo badan oo cadow ku ahaan ay ku faraxsanaayeen kala daga sidoo kale waxaa jirtay saacadihii ugu dambeysay muuqaal wareegay social media kaasoo dadyo badan ay ku falanqeynayeen inay tahay xiriirka cusub ama jacaylka cusub ee Rashka Boy balse arrintaasi waa uu beeniyay Rashka Boy waxaana ku tilmaamay gabadhaasi gabar ay walaalihiin wax xiriir ahna uusan ka dhaxaynin balse ay ka dhaxayso walaaltinimo sidoo kale haddaan nahay bahda Fandoor Media waxaan helnay codad la isdhaafsaday kuwaas oo cadeynaya in khilaafkan soo kala dhexgalay uu yahay khilaaf banaanka yaala balse codadkaasi aan baahi weynay anaga oo ixtiraamayna sharafta iyo milkaha familkan aan jecelnahay inay isku soo laabtaan oo noqdaan kuwii mar kale nolosha ku midooba muuqaaladii xiisaha lahaa ay soo wadageli jireen soo wadageliya haddaan nahay bahda Fandoor Media waxaan nahay taageeraha koowaad ee lamaanahaasi waxaa sanadadii ugu dambeysay social media ku soo badanayay khaasatan Soomaalida YouTube-ka isticmaasha YouTubero badan oo lamaana ah muuqaalo soo wadageliya kuwaas oo aad dadka u xiiseeyaan balse maalmihii ugu dambeysay noqotay tusbax afka furtay oo lamaanayaal badan social media ku soo biireen kuwaas oo soo galiyay muuqaalo aan indhaha u fiicneen iyo muuqaalo kale oo weliba xiiso badan oo dadyo badan oo 100,000 ka badan ay ku taxan yihiin ay u xiiseeyaan dadyo badan oo taageero u ah lamaanahaasi nasiib xumo mar dad ku soo biirto social media ama YouTube-ka way adag tahay si aad uga baxdo muuqaaladii aad soo gali jirtay YouTube-ka iyo weliba social media mar hadaa caan ka noqoto oo khilaaf yardo in soo kala dhex galo adiga iyo lamaanahaaga ee adag tahay in khilaafkaasi uu qarsoonaado isla markiina waxa uu imaanayaa banaanka because waxaad tihiin dad lamaane ah taageerayaal badanna lahay dadyo badan oo ku xumaa xiriirkiinana ay boonbooninayaan soona gelinayaan waxyaalo aan u wanaagsaneyn dadkaasi iyo kuwo kale oo aad uga xanaaqaya haddaba waxaa jirtay Rashka Boy inuu si carrada uga soo hadla muuqaal kaasi uu sheegay inuu jawaab u yahay jawaabtii laga sugayay ee ahayd furiinka Rashka Boy iyo Xabsa balse uusan si cad u sheegin uusan ku weeraray dadyowgii ku tixnaay ama taageeri jiray Xabsa waxa uu sheegay inay yihiin dameero aan waxba hubsan sidoo kale waxa uu soo galiyay qoraal barta uu ku leeyahay YouTube-ka kaasoo ku sheegay waxa uu yiri sida tan caafimaadka ayaa wax walba ka muhiimsan jacaylku waxba maahan mar dad haysatay caafimaad taasi oo shaki gelinaysa xiriirkii jacaylkii kala dhaxeeyay Xabsa sidoo kale Rashka Boy ayaa ka xanaaqay dadyoga badan ee community-ga u soo qoraya ee dhahaya maxaad u qiyaantay Xabsa waxaana ku tilmaamay kuwaasi kuwa aan waxba hubsan dadyo badan ayaa YouTube-kiisa ku qorayay community-yaal kuwaas ay ku eedeynayaan kuna dhaliilayaan Rashka Boy oo yahay khiyaanole balse ayagoo waxba hubsan arrintu aysan sidaasi ahayn ayna tahay khilaaf soo kala dhexgalay labadooda dhinac haddaba halkaad nagala socotaan saaxiibayaal waa channelka Fandoor Media oo aalamiis ugu gudbiya barnaamijyo xiiso leh wararkii ugu dambeysay ee social media la isla dhex marayay iyo barnaamijyo kale oo xiiso leh qisooyin jacayl fadlan walaal macaan hadaa ku cusubtaa channelkan subscribe saaro gambaleekana furo si kuu soo dhaca waxyaalaha soo gelin markasta dad hornood joogtana muuqaalkan like saaro like noo dhiirigelin una soo sheegay asxaabtaada waad ku mahadsantihiin daawashadiina iyo sida qiimaha badan aad noola socotaan markasta waa bahda Fandoor Media oo isku duuban oo idin leh kulanti wacan iyo video kale